السلام عليكم وزاهر محمد. مركب iyo soo laabasho wacan. Maan caawa waxaan rabaa inaan xogaha aan sharaxo maadaama iga soo codsadeen arday badan oo page-ka iga soo comment iga soo bixiyeen message iga soo direen waxay dhaheen xogaha faahfaahin ugu bixi qaabka loo sharaxayo iyo qaabka loo xareynayo. Marka xogaa yaraan tusi doonaa wixii qaabka loo xareeyo iyo wixii la iskaga baahan yahay qofka xareynayo waxaas dhan insha Allah soo durmareynaa caawa insha Allah. Marka hore waxaan cashar yar diyaariyay oo ku saabsan waxyaalaha qofka xareynayo waxyaalaha loogu baahan yahay process-ku marayo kadib aan mareynaa kadib inaan soo fiirino qaabka loo xareynayo soo practical. Marka hore fiir yar aan aqrineynaa si dadka ay u fahmaan sida wuxuu yahay barnaamijka wuxuu qabanayo qaabka loo xareynayo iyo wixii la iskaga baahan yahay dhamaan. Page-ka wadaan ka bilaabno. shuruudaha Turkey Bursary oo xagga bachelorka macnaha masterka iyo PG-ga waxoogaa way ka duwan yihiin. bachelorka mid walba goonidiisa requirement lagu baahan yahay shuruudaha lagu baahan yahay. Haddaan ka hadalno midkan hadda shuruudaha oo bachelorka hadda socda qofka waa inuu da'diisa uusan ka weyneyn 22 jir. macnaha haddii 22 jir ka weyn yahay macnaha application-ka ma xareyn karo ama uma ahlana ama looma ogola inuu xareeyo qof ka weyn 22 jir. waa shuruuda koowaad oo muhiim ah qofka inay iska fiiriyaan. waxaa kaloo jira qofka inuu haysto passport waa muhiim asna qofka inuu haysto passport-kaasna ay isla hadaan xogta ku qoran shahaadada iyo passport-ka waa inay mid yihiin. macnaha passport-ka wax ku qoran iyo shahaadada xogta xagga da'da siiba xagga magaca dhammaan inay iskaga egyihiin waa muhiim. inuu qofka haysto shahaado dugsi sare oo inuu soo qalinjibiyo cadeynayso shahaado dugsi sare ama warqad cadeynaysa inuu sanadkan dhameyn rabo. arday qaar waa loo ogolyahay ardayda aan weli dhameynin laakiin laga yaabo bishan soo socda inay imtixaanka finalka galayaan laakiin si iskuulkooda inay kasoo qaataan warqad oo last imtixaan ugu dambeeyay imtixaamaadka qaybta imtixaamaadka dhexe maadooyinka intuu ka keenay iyo inuu soo qaato warqad cadeynaysa inuu dhamaan rabo iyo maadooyinka midtermka inuu galay oo kali u harta finalka oo gabagabo u tahay iyo warqad oo ah from secondary-ga wixii oo keenay secondary-ga wixii oo keenay bundooyin ah form 1 form 2 form 3 oo ah transcript ahaan soo diyaariyo am kashf carabi ku soo qaaday daraasaad kaasoo dhameystiran qofka inuu haysto qaasoo ku xareyn kara qofka duu shahaado haysanin. sidoo kale waa inuu haysto shahaado dugsi dhexe waa meel la geliyo jirta shahaado dugsi dhexe laakiin se optional waa macnaha waajib maaha in qofka uu haysto. waxaa kaloo jira qofka inuu haysto sawir passport sawir oo teaser ah oo loo saaro application-ka meel yar oo sawir jirta oo la saar doono qofka inuu meesha saaro. waxaa kaloo inuu haystaa warqad tixraac ah ama reference oo ah in ardaygan oo leeqan qof oo macallin ah ama iskuulkiisa naftirkiisa inay u soo qoraan inaha ardaygan waa anaqana arday fiican waaye ama ardayga waxbarashadiisa oo asiga ka faalanayso iyo qaabkiisa inuu haysto. intaas waa shuruudaha ugu muhiimsan. marka haddii aan ka hadalno wadada loo marayo marka xareysanayso kale tusaale ahaan kale qofka xareynayo waa inuu lahaado email haddii qofka lahayn ma xareyn karo. waa in qofka hadduu hadda aan lahayn email haddii aan lahayn fadlan email sameyso ama gmail ahaado ama hotmail ama live ahaado ama yahoo ahaado wuxuu ahaado si loogu xiro website-ka Bursary-ga si loogu xiro oo linkiga lagu xiro xogtaada si ay biri kugu soo dhacdo email-ka adigna email-ka ka galayso kadib aad ka gasho. marka waxaa la sameynayaa marka account oo markii website-ka la tago magacaaga qoraya taariikhda dhalatay wadanka ka soo jeedo email-kaaga iyo password sameysan doontaa. marka website-ka joogto waan tusi doonaa qaabka loo sameynayo. waa inaad account sameysataa oo email-kaaga lagu xiraa. sidoo kale markii email-kaaga lagu xiro email-kaaga markaad ku xirtid aad confirm dhahdid
waxay kuu soo diri doonaan message oo ah in uu ku furayo website-ka oo activation ah, oo ah inaad website-ka email-ka soo gashid, email-ka soo gashid aad ka active gareyso message-ka kusoo diraan. message-kaas markaa xareysid iyo xoogaa waxa u dhaxeyn doona space yar oo 10 daqiiqo ama 10 daqiiqo kadib uu kusoo dhacaa. marka kusoo dhaco waa inaad xareysaa markii aad website-ka email-kaaga aad ka gashaa oo page-ka si oo kugu confirm gareeyo active-kaaga dhigo. kadib page-ka wuxuu kugu soo celiyay page-kii email-kaagi iyo password-kaas aad sameysatay markaad account sameysanaysa aad gelin doontaa. markaad gudaha u gasho laba qayb uu leeyahay Bursadaria. qaybta koowaad waxaa waaye waxay ka hadlay intaan qaybood oo hadda soo sheegi doono. waxaa kamid ah personal information, qofka xogtiisa caadiga inuu sheego magaciisa, passportka, numberkiisa, wixiisa, wadanka ku dhashtay, magaalada ka joogo, familkiisa, inuu hooy aabo iyo caruurta inta la dhalatay inuu sheego, iyo inta income ay qaataan. waxaa ku xigay contact information, xaggu degan yahay, area degan yahay, magaalada, numberkiisa. waxaa ku xigay educational information, in waxbarashadiisa wax ka oo ka hadlo, bachelor adii oo high schoolkiisa, iskuulkii oo kasoo baxay, bondada intuu ka keenay, wax dhan markeska laga baahan yahay. hadii dugsi dhexe haysan dugsi dhexe inaad gelisid, sidoo kale asina macluumaadkiisa aad qortid. language ku xigo inaad haysatid luqadaada afkaaga hooyo waa inaad gelisaa, iyo luqado kale hadaad taqaano. work experience aa jira isagana oo muhiim ah. work experience yan waa laakiin waa optional waaye, waa optional macnaha qofka aan work experience lahayn waajib kuma aha inuu mar walba uu geliyo, waa ka tagi karnaa. academic qualification jiro asagana oo ah IELTS, TOEFL, shahaadooyinka oo Englishka ama grade in qofka haysto asina waa laga tagi karaa, waa optional. social activity jiro in qofka uu meelo oo voluntary u soo shaqeeyo ama waxyaalo kale oo aan ahayn waxbarashada caadiga ka baxsan hadduu soo diyaariyo kale haysto, waa asagana waa laga rabaa, laakiin si optional waa ka tagi karaa qofka hadduu intaas saddexdan shay sida work experience-ga, academic qualification-ka, social activity, saddexdaas waa laga tagi karaa. macnaha laga muhiim ma 100% waa ka tagi kartaa haddii aan haysanin. haddii haysatana waa ku darsanay, waxa ku yahay muhiim ku yahay. waxaa ku xigay Turkey work experience, inaad qof ma ku joogo Turkiga su'aalo sax camal ku weydiin doonaan, iyo ma application-kan waxaa waa jawaabtaada aad ka ogaan doontaa markaad result-ka xariisid, jawaabtaada kaaga soo muuqan doonto meeshaas. qaybta labaad waxay ka kooban tahay intaas markaa xariiso qayb labaad ku geyn doonaa. qaybta labaad waxay ka kooban tahay application condition, oo ah inaad shuruudaha oo Bursadaria. qaybta labaad asagana waxaa waaye application condition, in conditionka oo Bursadaria aad ogashahay waad confirm gareynaysaa. kadib wuxuu kugu soo xidhin doonaa reference inaad gelisid. reference waa 3 qofood, hal qof waa gelin kartaa, laba waa gelin kartaa, saddex waa gelin kartaa. saddex ka badan ma jirto, laakiin saddexdaas waa buuxin kartaa, ama hal ama laba inta adiga heli karta soo gelin. preference waxaa waaye jaamacadaha dooran doontaa, universities waa jaamacadaha dooran doontaa. 12 jaamacadood oo faculty ah aad fursad u leedahay inaad dooran doontaa. kadib waxaa ku xidhi doonta luqad letter of intent la dhahayo oo 3 su'aal ka kooban. 3 su'aal waxaa kamid ah inaad waxyaalaha rajeynaysa, macnaha markaad high school education Turkey iyo balaankaaga kadib markaad qalin jabisid maxaa ku qorshaysan inaad sheegtid. su'aasha labaad waxaa lagu weydiinaa waa maxaa u soo dooratay Turkey for high education, macnaha bachelor oo Turkey maxaad u soo dooratay, sababta soo dooratay, iyo waxaad qeexdaa ama waxaad sheegtaa maxaad u dooratay department aad dooran doontaa. department maxaad u dooratay iyo maxaa ka qoseeyay department iyo aqoonta adiga soo baratay ka dhaxay, maxaad ka dhaxay ama sidii ka tawaad ku fiican tahay. kadib waxaa ku xidho bounty questionnaire waxaa qofka interview meesha loogu qaadayo, wadanka loogu qaadayo, iyo meesha loogu qaadayo, magaalada loogu qaadayo qofka doorana. summary ugu dambeeya qofka oo kadibna wixii uu xariiqan uu soo koobayo, kadibna waxaad dhahaysaa apply oo ku dhamaanaya. intaas ayuu ku kooban yahay process ahaan daro u sheegno Bursadaria. haddana waxaa gal doona qaybta practical-ka ah, marka waa insha Allah isla socon doona. waa kana marka Google-ka tagayn doona, waxaad gelin doontaa Turkey Bursadaria. markaad geliso waxaa ku soo saari doonaa or page
waxaad ka dooran doontaa midkan ku qoran tahay Turkey Browser oo TR ugu dambeyso hadaad ku dhufatid wuxuu ku geyn doonaa page-ka rasmiga weynaa ee browser-ga. marka ku keeno waa kana page-ka waa kana page-ka. marka waxaa sameynaysaa haddii rabto inaad xareyso apply dhahdo waxaad tegi doontaa calaamadan cagaarta oo apply ah ku dhufan doontaa wuxuu ku geyn doonaa meeshii laga xareynayo emailkii waa kana passwordkii waa kana. adiga haddaad hore u lahayn haddaad cusubta sooma haddaan cusub hadda waa cusubnahay sooma haddaa cusubnahay waxaa ku dhufanaa register dhihi doonaa. markaa dhahno waxaa kusoo bixi doona horta meeshaan magacaaga gelinaysaa magacaaga koowaad labaad saddexaad aad gelin doontaa. xaggan waxaa gelin doontaa genderka waxaa tahay female male. xaggan waxaa gelin doontaa nationality wadankaaga. xaggan taariikhda dhalashadaada. xaggan emailkaaga aad ku celinaysaa mar labaad. password aad samaysanaysaa passwordka mar labaad ku celinaysaa. kadib waxaa gelin doontaa verification code-kan ku qoran kaaga soo muuqanaa gelin doontaa. kadib approve markaa dhahno save aad dhigi doonaa. tusaale ahaan haddaad nagu soo celiyo tusaale ahaan oo kale Axmed Cumar Sama xaggaana imaanaysaa waxaa dhihi mail tusaale ahaan nationality Somali. taariikhdaad gelin doontaa taariikhdaad dhalatay aniga waxay qoraan bishii 6/20 emailka gelin doontaa oo emailkaaga oo markaas leedahay ka geliso oo ku celin doontaa mar labaad. password gelin doontaa passwordka hadana ku celin doontaa mar labaad. kan waxaa gelin doontaa configuration-ka wixii kuu soo baxdo ENCHX kadib approve save aad dhihi doontaa. intaas save dhahdid wuxuu ku soo bixi doonto haddana emailkan hore u sameeyay mar labaad kuma celin kari laakiin waxaa ku soo bixi doonto sawir saas ah oo lagu dhahaa Dear Ahmed Abubakar registration has been successfully completed macnaha ku mahadsan tahay. kadib waxay ku dhahaan home page aad waxaa ku soo dhici doono markaas email ku soo dhici doono. emailkan waa kana emailkan ay ku soo dirayaan oo ah halkaas markaas halkan oo casaanka gaduudan oo aad ku dhufan doontaa asigoo Soomaali asigoo English ma heli doontaa oo ah please click meesha clickta ku qoran tahay. haddii halkan aad aragtid waa dhigi kartaa ama Turkiga baa ku dhufan kartaa meesha gaduudan. markaad ku dhufato waxaa ku soo bixi doono sawirkan oo kale oo ah waxaad sign gareysaa in website-ku ku ogol yahay ana safiya af Turki ahaan uu qoran laakiin meeshan calaamadaas ku dhufan doontaa. markaad ku dhufatid wuxuu ku keen doonaa page-kii oo ahaa caadiga ah oo laga xareynayo ku keen doonaa. waa kana marka page-kan ku keen doonaa. page-kan ku keeno waxaad gelin doontaa email-kii aad samaysatay iyo password-kiisa. email-kii aad markii ku xareysay password-kiisa gelin doontaa. soconaya laakiin waxaa ogaatiin markaad xareyso email ka soo dhicitaanka waqti ay u dhaxeyn doonto laga yaabo in waqti yar ay 10 daqiiqo qaato marka qofka ka degdegin iska sug inta uu soo dhaco emailka. kadib markaad xareyso
waxaa kusoo dhici doona email labaad oo ku cadeynaya inaad u aqbalay macnaha akoonkaagu active yahay ay kusoo dir doonaa. kadib markaas waa active gudaha usoo gali doontaa. markaad passwordkaaga waxaa gelisay halkan saana kusoo bixi doonto macnaha page kana kusoo bixi doono. xaggan waa wixii aan kuu sheegay oo ahaa personal key information key, contact key, education information key, language key, work experience, academic qualification ka, social ka, turkiga ilaa application ka oo jawaabta kasoo bixi doonto. xaggan waa su'aalo oo ka saacideeya macnaha qofkii macnaha aan fahamsanayn. xaggan waa meeshii ka bixista waaye. xaggan xaggii luqadii waaye, luqadii turkiga, english, carabi, faransiis, ruush, Persia, Bosnia iyo Spanish waaye. waxaad adiga markaas luqada taqaanaa sidii ka badanaa Soomaalidana Englishka u badannahay ama Carabi ama luqada taqaan markaas aad gelin doontaa. xaggana waa muhiim, waa research scholarship. tusaale ahaan oo kale aniga oo kale waxaa xiiseynaya rabaa in iyaga ma hayaan macnaha facultyga rabo oo kale inaad ama waxaa aniga daneynaya oo kale inaad ka heli karo marka hore in xaggana ka ogaan karaa. tusaale ahaan oo kale checkana fiirin doonaa, waxaa gelin doonaa wixii uu ka soo baxo mid walba ilaa iyo geeska aan ku socono. tusaale ahaan oo kale maxaa rabnaa aniga oo kale inaad ku takhasus oo qofku rabo inuu barto. tusaale ahaan oo kale aniga civil aan rabaa, civil engineering aad doortay. bookaskan ka labaad imaan doonaa. waxaad dooran doonaa maxaa ka rabaa aniga ma research ma rabaa, ma language ahaan ka rabaa, ma PhD ma mise bachelor degree gelin doonaa. kadib waxaan dooran doonaa wadankii aan aniga kasoo jeedo. macnaha wadamo qaar macnaha wadan walba macnaha waxba u furan, waxba ka xiran. marka wixii oo Soomaali ahaan ay xareyn karto kana dhahaa. kadib waxaa tagi doonaa waana jaamacadaha isku mid yihiin laakiin dhammaan ka dhigan doonaa calaamadaas tumo kaliya ku dhaafi doonaa. marka kadib waxaa dhihi doonaa search scholarship. wuxuu inoo soo saari doonaa wax walba oo civil ah oo haya. tusaale ahaan oo kale civil oo haya oo 19 oo jaamacadood. waxaa kamid ah Uludaaga kamid ah, waxaa kamid ah Mersin kamid ah, Gazi University, way taxayin somjeed taxayin intaan waa laga helaa. waxaa kaloo jiro jaamacadii intaas macnaha marka waa fahmi kartaa inta waa 19 8 ku dar waa 27 jaamacadood ama civil engineering heli doontaa macnaha aad ka helaysaa. marka waa inaan heli doono waa aragnay. waxaa dib ugu laaban doonaa applicationkeena dib ugu laaban doonaa. waxaa ka bilaabi doonaa marka hore waa personal information ka bilaabi doonaa. personal information muxuu ka kooban yahay? wuxuu ka kooban yahay mail maad genderkaaga, single ma tahay, marital status-ka, date of birth-ka, nationality-ka kasoo jeedid, wadanka kasoo jeedid, magaalada ku dhalatay, passport-ka ID-giisa, numberka passport-ka, sawirkii passport-ka scan saaran, hadaad leedahay wadanka dhalasho kale oo laba jiro laba dhalasho wato, laba dhalasho kale daawad waa qeexaysaa. hadda diintaada sheegi doontaa wuxuu yahay bis intaas ugu muhiimsan. marka hore waxaad tagi doontaa markii saan kugu soo baxdo. haddaad rabto inaad wax geliso ama wax ku darto edit aad dhihi doontaa. meesha edit ku qoran tahay calaamada buluuga. markaad gudaha u gasho waa kana meeshaan u jeedid sawirka waaye. sawirka emailka qofkiisa inta xagga ka soo muuqanaya magaciisa saddexan. sawirka xaggana laga bedel karaa qofka inuu edit dhaho juice oo dhahaa sawir oo dhahaa. marka sawirkii rabo dooranaa. sawirkii markuu doorto ku aadinaa. markuu ku aadiyo sawirka qofku wuxuu ku aadin doonaa meeshii wajigiisa u dhow oo ku tuusin doonaa oo korab gareena. kadib saa automatically waa ku aadina kadib okay dhahe waa taas u qaadana. xagga magacaaga oo automatically markaad soo sameysanayso oo koodii hore ka soo sameynay akoonka oo ku dhagan yahay ma laga bedeli karo magaca lama bedeli karo. wixii magac ka xiga qofka hadduu kusoo qaldo wuu bedeli karaa. tusaalahaan kale waxaa gelin female, male, single, divorced, married, waxaa tahay gelin da'daada gelin doontaa.
حاجة لرشادة ولا بدرك لرشادة ما كورا بروجكت أكون كاجا ما كل سمينس سومالي أنت شيكته waddankaaga oo ku celinaysaa waddanka magaalada ku dhaltay Muqdisho kale ama way badan yihiin magaalada markaas waxa doonta dooranaa balada xaawo ceel waa fadoolo adiga markaad meesha gobolka ku dhalatay gelin doonta oo baasaboorka kugu qoran macnaha muhiim waay baasaboorka da'da kugu qoran magac kugu qoran wax dhan inay isleeyihiin waa muhiim isleeysi fadlan haddii ay ka qaldan tahay iska soo sax haddii wax isdamarsan yihiin waa xareen kartaa laakiin se soo xulashada dambe ee kugu adkeyn doonaan macnaha qof aan bixiis islahayn marka xagan waxa gelin doontaa baasaboorka ma gelin mise numberka qaranka national ID waa gelin kartaa haddaad haysato haddii kale baasaboorka gelin doontaa baasaboor aan geliyay baasaboorka numberka aan geliyay ma kadib xagan waxa gelin doontaa tusaale ahaan oo kale waxa gelin doontaa sawirkii oo scan saaran baasaboorka scan saaran sawirkiisa gelin doontaa xagan saddexdan kale xagan waxa ku sheegi doontaa haddii aad leedahay baasaboor kale ama dhalasho waddan kale waa ku xusaysaa halkan haddii kaliya ku soo bixayso waxa dhahaysaa waddankii magaciisa gelinaysaa haddii aan lahayna sidiis ugu tag xasu taawan xagan saddexdan kale waa optional macnaha waxa laga tagi karo muhiim ah laakiin regionska waa gelin kartaa islaamna tahay ina ethnicity aad tahay qowmiyad Soomaali ahaan qowmiyad Soomaali ina tahay waa gelin kartaa hadaad qowmiyad ka tagso jeedna waa gelin kartaa markaas adigu waxa rabto laakiin saddexdan boxes waa optional muhiim ah oo laga tagi karo kadib marka intaas aad gelisid waa save karnaa waa ka gudubnay personalka waxaad tagi doonaa family information tagi doonaa family information kama badno waa kooban yahay waxa gelin doontaa tusaale ahaan oo kale magaca hooyo magaca aabo iyo meeqa caruura kula numberka caruurta meeqa gaarayaan xaaladaada single miya lacagta income total monthly meeqa bishii meeqaan soo gasho tusaale ahaan oo kale haddaan ku soo celin oo kale هذا كسر عنه هاي مقعد وقت صراحة وكلا كسوقات وثم قاسم وكلا حالي أما إنجليش أنا أقرأ كتير حد باسبور هدي ساعة دون تمكسر أقرأ كتير لكن دي ما دام يتهي إنجليش أسكي أخرنا حاجة لسا عمر ميري مركز سؤالك أكو دينا هاي أبو منول هاي منوشة مايا أدينوشة ها هدينو مايا دي أبو منول يس هاي مايا نيسا دي كذا هدي أب هاتو كنول يا كشي ودين تو أبو ما شقيا هدو شقيا تكتا ساعد دونتا واحد قلنا تا جنبني جو شقة يا شقة دي صناعة تهاي يا تايتل كوكا هاي شقة داس هدو شقة الناس وتعاون أو تكتا مساعد دونتي وحاشي أنت عرو كورة لرتي أديك أن أنت عرو نبرك عرو كورة تاشيك دونتا حاجة أنا ما حالة دا كورة كوشي دونتا توتال إنكم مونتي بشي وحين علس محني سوق قلب إن شيء كتير انت اسمك تجلسوا وحتى دونا contact information او متى هدا ادجوتو current اسرن current معناها waxa waaye markaas waxa adiga joogto current information tusaale ahaan kale waxa wadankay joogto hadda qofka xareynayo hadda meeshuu joogo inuu geliyo tusaale ahaan kale Soomaaliya jooga oo kala dhahay Muqdisho postkayga isbadada Apple Street ka deganahay numberkayga waa kaas waa galiye marka waxaa jira waxyaalo qaar dadka sidaan Soomaaliya badan aan awoodina keeno sharxan oo kale building numberka oo kale iyo door numberka badan Soomaaliya systemkaas waa hadda inay leeyahay u badan tahay hadaa leedahay waa gelinaysa hadaa leeyahay waa ka teeyda macna waa ka teey karnaa muhiim ah laakiin sadaa awood heli karta gali fadlan wuxuu ku diinaa midkan hadda aad
loo sheego isma midka hadda ma ka duwan tahay midka degan tahay macnaha tusaale ahaan oo kale addresskan adiga aad noo soo qortay iyo midda hadda adiga aad degan tahay ma laba address kala tahay mise address hal address isku yihiin haddii tahay difference haddii tahay waxa calaamadan saar doontaa waxaa gelin doontaa midka hadda aad degan tahay haddii aysan isku mid tahay midka hadda meesha joogto iyo addresska qortay isku mid yihiin waa sidiisa ku daan doontaa su'aasha labaad waxa waaye meeqa sano addresskan degan tahay hadda ana waxaad ahayd 17 bilood waa dooran kartaa sanadna waa dooran kartaa ana sanad 17 sano waa deganahay addresskan ahayd marka kana waa social media muhiim maaha laakiin se qofku waa gelin karaa tusaale ahaan kale Facebook uu leeyahay linkiga Facebook uu soo qaadaa oo ku baasta gareynaa hadduu Twitter oo linkiga soo qaadaa oo ku baasta gareynaa kali inta soo macnaha wixii Skype leedahay waxa dhan hadaad leedahay ama hada waad ku laakiin muhiim maaha laakiin ku dar kartaa u baahan tahay kadib waa saf garan doonaa xagaas waxa uu baahnay contact information ka uu baahnay waxa gal doonaa education ka information ka gal doonaa education waa kana waxaad aniga asibajura qofku ku xareynaa laba kaliya u banaan waa middle school ka iyo high school ka middle school ka kala tagi doontaa صراحة وكله سكول كيدوسي دحيل لكن سي سكول كيدوسي دحيل مركه مهم maaha in aad xareyso mataqaana middle school kaaga tusaalaha oo kale laakiin si hadaad rabto aad awoodo waa xareyn doontaa waxa gelin kartaa Soomaali wadankii magaciisa magaalada iskuulkii magaciisa inaad muddo ama soo dhameysay sanadka bilowday dugsi marxaladda dugsiga dhexe ilaa sanadka dhameysay boqolkiiba lagu saxaa boqol lagu saxsaa boqolkiiba ma keentay بونتيجنا درجة بونتي قرية حاجة حاجة بنتا شهادة مجاعدة حاجة شهادة ترسكريبتي جرين بنتا كده وحكوا دين دونا ما لا هذا هاي واحد كلمة كشيء هذا يس ده هدي وحكوا دين دونا كان تيجي شيء معنا وطن كما أوجا شيء ما سكرو كأوجا شيء مجاول كأوجا شيء باشيك دونتا كده من حاشيك دونتا كارت نمبر كشيء نمبر لابو نمبر 6 نمبر كو كده منو شهادة مكوسيا معناها كهشي كلام تسمى marka hadii aad gelinayso macnaha shahaadadu si dhexe hada shahaadadu si dhexe aan hanina shahaadadu si service kaliya waa dadka badan sida Soomaaliya badan kiiska dugsi sare leh u badanahay dugsi sare kaliya waa gelin doontaa caadi waaye saxaan kale waxa dhahay wadanka Soomaaliya waaye Muqdisho iskuulka Annahda iska dhahay markii كتب واحد هاي education كي و secondary education high school كتاب اسمه journal واي معناه واحد أو vocational يو حاجة وحلا دين school دين ما school عادي واي أو journal field دي كتخصص تخصص دونك field اللي هو تخصصه لكن school كسومالي بنا ملهن لكن هدي أدلاد هاي فبليس قلي ما science كتخصص ما literacy ما language ما math لكن جرنال وجرا بدنا جرنال سكول كده بدنا جرنال كده سكول كده ما continuous ما وده حد أو أرضي حد اجتماعات أو مدو خلينا نجمع ربع أم أرضي دمية ما أرضي دمية هذا أرض تهي خلينا نجمع ربع أو هذا الربع كده إنه دمية بليز continue قلي continue قلي هذه أرض ولي أن شهادة قادم هذا قادة تاني graduate ده كده بحال قلنا تا حلقات بلا دكسي سري حلقات دمية markaad gelisid iskuulkaaga meeqa lagu saxaa bountiga grade-ka 100 lagu saxaa hadii 100 lagu sax 100 laakiin hadii 10 lagu sax 10 100kaas meeqa ka keentay 90 ka keenay 90 waa qoraa ma decimal ma bounti raacay hadii raacaysan waa gelinaysa hadii raacinaysa ku daynaysa oo 0 adhaysa kadib shahaadada gelin doontaa oo mataqaana oo shahaadada gelin doontaa oo halkan transcriptiga marka gelisid shahaadada soo qaado salahan oo shahaadada soo qaado doonta high school certificate ay doonta marka soo qaadi kaalin ma gashay oo ma u gashay
educational levelka maya haddaad gashin tartii hore soo sheegnay waa taxaysaa makaalinta ma iskuulka u gashay ma wadanka u gashay ma gobolka u gashay waa sheegi doontaa namarka ka gashay markaasi shahaado ma lagu sii su-aalaas aad weydiin doonaa haddaad yes dhahdid marka waa kasii tagi doonaa waxaa gudbi doonaa saalaxaan kale language-ka tagi doonaa marka intaan cagaarka ah oo hadda oo cagaarka ah waa intii oo muhiimka ahay wixii kale oo hadda meeshan cagaarka bedelkiisa markii hore wuxuu noqon doonaa guduud macnaa wixii guduudun waa muhiim in la buuxiyo tusaale ahaan cagaar ay ii tahay aniga laakiinse wixii jaalaha ah waa optional oo laga tegi karaa saddexdan oo kale waa laga tegi karaa qofka duusan haysanin tusaale ahaan oo kale hadda waa kana language-ka imaadeen language-ka native language-ka ku weydiin doona marka hore waxaa ku dhahaa luqadaada hooyo fadlan luqadaada hooyo geli luqadaada hooyo gelin doontaa waa af soomaaliga af soomaaliga gelin doonaa waa qad uu dooran af soomaaliga gelin doontaa other skills ma leedahay haddaad leedahay other skills please add waa ku dari doontaa wixii haddaad skills leedahay skillska leedahay sheegaysaa noocuu yahay iyo wuxuu yahay wax dhan aad sheegi doontaa oo other language skills macnaha luqado kale ma taqaanaa luqado kale haddaa aqaanaad ay suqaanaha kale waxaa aqaanaa english aqaanaa dhehe englishka levelkay ka tahay kale dhexdhexaada ka ahay intermediate ama beginner ma tahay advanced ma tahay intermediate dhahay I have certificate to prove that I speak this language macnaha wuxuu ku dinaa shahaado ma ka haysataa haddii shahaado ka haysatid please tick saar wuxuu ku dinaa marka iyaga waxay u yaqaaniin luqadda Englishka oo kale hadda shahaada ka haystaa waxay u yaqaan luqadaha Englishka oo macnaha caalamiga sida TOEFL oo kale oo accent Mareykanka IELTS Englishka waxyaalahaas oo macnaha shuruucda weyn marka adiga mar walba may iska dheh si ay kugu badan macnaha documentiga oo iyaga ka rabaan documentigaas badanaa dadka hadda IELTS TOEFL haysteen waa gelin kartaa waa caadi waxaa kaloo ku xiyo Turkish language ma taqaana luqad Turkish ma taqaana haddaad aad taqaan yes haddaad taqaan no intaad tagay idil baa dheh yes ka dhigi kartaa marka work experience badanaa dadka high schoolka waa yartahay inay work experience yeelaan haddaad leedahana adaa dhehe doontaa waa gelin doontaa shaqadaada iyo titlekaaga waxaa inaad gelin doontaa tusaalaha oo kale wadankaa gelin doontaa hagaan Soomaaliya dhihi doontaa hagaan shirkada magaceeda gelin doontaa booshishiga ku joogtid titleka u haysid shaqada xilligaa bilowday xilligaa dhameysay haddii shaqada ay tahay mid hadda aad ku shaqeyso I'm currently at kaliya wuxuu kuu sheegaa xilligaa bilowday maadaama oo wixii kuli continuous yahay haddii laakiin shaqada aad ka tagtay hore u shaqeyn jirtay laftii dhexe xilligaa bilowday xilligaa dhameysay iyo shaqada responsibility ay haysaa gelin doontaa waa haddii aad tahay qof oo hore u shaqeeyay haddaan ka shaqeynin waajib maaha waa ka tagi kartaa academic qualification wax kale maaha waa luqadaha Englishka ka soo dhigtay sida faanaha oo kale grade oo kale GMAT oo kale SAT oo kale IELTS oo kale waxyaalaha aad ku soo dhigato jaamacadaha oo kale oo badanaa oo examination kala xiriir luqadda ma haysatid marka kaas muhiim ah laga tagi karaa social activity-ga wuxuu ka hadlaa maxaad award ma ka shaqeysay project luqada kale su'aalaha kale maxaa kale adiga aad taqaana oo aan ahayn high school maxaa kale soo dhigatay haddii awaal marin ma heshay project ma qabatay shahaado oo caadi ma dhigatay su'aalaha kale waxaa dhahaa kale certificate haystaa oo kadib gudaha ku geynaa wuxuu ku dhihi doonaa certificate noocee haysataa su'aalaha kale certificate maxaa waa magaciisa oo kale hadee software oo kale dhahe software computer هذه قضاء بلاده gelin doontaa sharxaan qolada kun iyo 14 bilaabay bishii labaad saddexdeeda institutionka waxaa iska dhigi karaa oo kale Sokomin oo kale iskuulka Sokomin ka soo baxay shahaadada muxuu ahaa oo kale
computer software shahaadada documents gelin doontaa shahaadada oo tusaalaha oo kale computer certificate oo kale gelin doontaa marka gelisid description ka sheegi doontaa macnaha waxyaalaha ku soo barata tusaalaha oo kale waxa ku soo barata oo kale Microsoft oo kale Word Microsoft Excel oo kale adiga PowerPoint oo kale adoo wadaya tusaalaha oo kale PowerPoint دوس oo kale marka intaas marka dhahdo kale waxaad ku soo baratay sheegi doontaa save ali doontaa kadib su'aalaha oo kale waa ka soo save garee waxa ku dhahay certificate software computer certificate of computer software marka aadi wax kale frontier ma ku shaqeysay ama ka badan haasid waa gelin kartaa ad la dhahay waa gelinay ilaa aad inta shahaada haasid waa gelin kartaa frontier activity kala tusahan kala meel oo frontier ma ku shaqeysay hada ka shaqeysay ad la dhahay waa gelin kartaa hobbies ma leedahay hadaad leedahay had idida dhahay waa gelin kartaa marka waa waqtigan hayo ka socon doona waxa garan doona Turkey experience waa muhiim kan lagama tagi karo waa muhiim marka waad gelin doontaa teeda caadigan qofku waxa u roon inuu marwab su'aalahan qaar oo may iska dhaho si oo macnaha u helo fursado fiican tusaalahan oo kale have you ever been in Turkey horma Turkey u aaday may oo kale hadii hore u tagtin dhigata daad may dhehaysa saarabta adiga xagee ka soo ogaatay macnaha scholarship ka su'aalo badan waxa dhigata xayisiin website kale education consultant xafiis ay soo sheegay educational fair or educational institute school ka jaamacada ay saxaab qaraabo qof kale dawladda Turkiga ay soo sheegtay social media ka arkay macnaha 100 option waay midka adiga another website ka arkay dhigata website ka arkay adiga midka adiga reason ka ku aragtay sheegay doontaa do you have qaraabo ma ku leedahay Turkiga ku jooga hadda ku jooga miyaas oo dhigata hadii ku joogna may hadii dad ma ku guuleystay oo hore oo macnaha u helay scholarship ka waa su'aasha macnaha qof dad ma hore u helay scholarship ka oo helay Turkiga bursada ma jiro qaraabadii ma yahay ama ha laakiin badana ma ina hada ku runsi oo macnaha ku cariir ugu gelin macnaha information ka sidoo kale waxa dhigata relative live Turkiga ku nool ma jiro ma ku nool ama dib ku nool hard hitunta dib safe hitunta kadib ugu dambeyntii waxa ka baxnay qaybta koowaad qaybta koowaad application kan waxa waaye jawaabta kugu soo dhici doonto ama ka arki doontaa markii application wada xariisid kadib marka inta aad buuxisid waxaad tagi doontaa home page meesha ku qoran tahay tagi doonaa home page marka tagtid waxa sameyn doonaa waxaan soo bixi doonaa application ka oo ah meesha oo qaybta labaad si uu gudbi lahayn صراحة وكذا واكنا لحديثهم كأبريل بلامة أفتهم كمية علمان دونا وأندرجراduate program apply ماشي عقارن please apply ماشي عقارن أقول فدونتا كروفو كده بحكوا لها ما أوجشها وحن إن application كاي وحي مهبطاي وح السؤال بدنا كويدينا نكو حالينها start application اللي هنا start application مكان رحنا صراحة وكذا wuxuu ku dhahaa condition kan ku soo jeedna macna shuruudaha ma ogashahay macna tusaalahan oo kale bachelor degree qofku waa inuu san dhalan 1997 bishii koowaad macna bishii koowaad waxay ka badan bishii koowaad labadeeda qofku wax xareyn kara laakiin bishii koowaad 1997 qofku ma xareyn karo waa inuu macna shuruudaas ku saabixis marka qof ayuu Turkiga ku joogna ma xareyn karo qofku inuu wadan kale joogaa marka intaas waa u muhiimsan wixii ka qofku waa akhrisan karaa kadib waxa I have read waa ogolahay save ali doonta wuxuu kugu gudbin doonaa tusaalahan kale page ka labaad reference tixraaca ku weydiin doonaa tixraaca saddex qof lagu ogolahay inta waa gelin doontaa tusaalahan kale inta rabto tusaalahan qof kale isku daynana xareeno tusaalahan qofku reference marka macalinkaaga oo ku soo qor karaa jaamac isku kan ku soo qor karaa adii saad doonto tusaalahan oo kale maamulka oo kale waxa lahaa Abdulqaadir Allah Qaadir Hussein Hasan
Abdulqaadir Xuseen Abdulqaadir magac koowaad kaliya inta leh magac labaad inta keenaya tusaalahaan oo kale Xuseen waxaa gelin doontaa numberkiisa oo kale tusaalahaan oo kale 252 adee kadib gelin doontaa tusaalahaan 5 geli emailkiisa inta gelin doontaa inta xagina meesha u shaqeeyo iskuulka kale al nahda ma aha iskuulka dhahada nahda primary oo kale uu joogaa soo waxa uu xogkiyahay kale principal waaye maamul waaye ama waxa dhigata teacher waa macallin igiya adiga markaas wuxuu qofkaas uu yahay gelin doontaa xagan waxa gelinaysa warqadii qofka ku soo qoray warqada jirto warqadii qofka ku soo qoray gelin doontaa markaad gelisid waxa hadii qofka iskuulkaaga oo ka socdo waxa dhigata this information belong to my academic ka socda inta kadib waxa save ali doontaa sorry meeshan email laga rabaa waxaan email qorto saxan kale email la soo doonaa waxaan kale marka aadid waa save garan doontaa soo waxa ka tagay intaas ma fahamtana filaad xiraaca qaabka loo geliyo markaad gelisid waxa ka preference aad tagi doonaa jaamacadaha xulnayna jaamacadaha marka xulnayna waxa tagi doonaa waa kana ada dhigta meeshan waa markaad save gareento way inta ada dhigta marka hagana ada dhigtona aniga marka hore waxa rabay civil arabe civil arabe doona laakiin intaan fakalti waa hel doonta waa hel kartaa intaan fakalti waa kan wax ka maqan male fakalti badan kooda ku jiraan fakalti badan kooda wax ka maqan malaha saxaan aniga qof walba wuxuu daneynaa u gelin doonaa aniga ahaanteeda waxa rabaa oo kale tusaalahaan kale civil oo kale marka hore soo dooranay civil engineering oo kale civil engineering waa kana jaamacadaha waa kana tusaalahaan kale Istanbul University oo kale magaalada Istanbul ku taala luqadda waa Turkish macnaha afturka ugu badan wax requirement iska fiiri macnaha calaamadaha guud requirement ay jiraan please su'aalaha kale jaamacadaha kale requirement ay leedahay in qofka oo TOEFL oo site wato in oo TOEFL oo wato oo kale boqoshan TOEFL kiisa darajada inay ka tahay 513 IELTS lix inuu wato marka jaamacadaha saacan ka tahay ka taka dooran hadii wax u haysanin macnaha waa ku adkaan doontaa marka iska fiiri soo kale ku shiliya doorana waxa soo dejin doona marka doorto save aditana markaas hal jaamacad Jaabir isoo xore oo one university hadana ku cilin doona ilaa 12 ma bixin kara ilaa 12 ka jaamacad waa dooran kartaa soo kale civil civil engineering midka haduu saan ka university kale tusaalahaan kale waa boqol geebsadan English requirement malaha kan oo kale iska dooran kartaa dooran kartaa aad waa dib safe adii doonta ana saasa ku wada doonta ila saas caadi ilaa 12 geynta 12 buu ogol yahay inaad dooratid kadib halkan waxa ku horan macnaha in qofka oo sidoo uu soo kala horay uu kala muhiimsan yahay uu kala horay macnaha number 2 ku galo midka adiga number 2 ku ah macnaha si kala jeceshahay oo ka rabto kala horay number 2 number 2 number 12 kadib wuxuu ogolaa ku dhahaa macnaha in hadii in case heli waasay tusaalahaan calaamadan waxa waaye in case hadii wixii uu hore ad heli waas macnaha ina ku sii different program kale ana ku sii inkastoo ay fiican tahay
in qofku uu jecel yahay wixii uu soo horay inuu helo, laakiin haddii in case heli waase ama fursad ku noqon waase inaan ku siino program kale oo kugu horay aan ahayn. macnaha waa TikTok ku roon tahay inaad iska yeeshid, macnaha ku fiican tahay. waxaa kaloo sameysaa hadaad waa ka tagi kartaa, hadaad saari kartaa. waxaa kaloo jirto badanaa waxaa fiican haddii in case aad rabto inaad xareyso in oo programyada ay u badnaada hal nooc, macnaha inaad boqol nooc kala dad civil iyo medicine inaad tackle doono. waxaa fiican haddii medicine doorto medicine, haddii agriculture inaad badsatid, macnaha inaad ka bixin macnaha mawduuca si oo su'aalaha qaar ugu jawaabin kugu adkaan inaad jawaab ka siiso. macnaha waxaa fiican in hal program aad ku ekaato oo aad diiradda saartid intaad wax kala duwan dooran lahayd. adiga waxaa laga yaabaa in xulashadaada ay dhib ku keento. marka ardayda waxaa ugu talin lahaa haddii xareynaya in hal program ay xareystaan oo isdhihi kara programkana ugu muhiimsan, oo ama programkana kasoo bixi kartaa inaad xareysatid si aad u awooddo beri inaad jawaab fiican u heshid, macnaha aad ka jawaabtid. marka waa wadno tusaalahan oo kale jaamacadda saddexaad aad dooraneynaa. waxaa dooran doonaa Sakaria oo kale dooran doonaa, Sakaria University. waxaa kaloo ogaatiin magaalooyinka badanaa lama ogolo. tusaalahan oo kale xaggana ku qoran tahay, macnaha magaalooyinka ka badan lama ogolo. tusaalahan oo kale afar ka badan lama ogolo, sida tusaalahan Ankara oo kale, Ankara, Istanbul, Izmir should not be more than half of the total number. tusaalahan oo kale Izmir iyo Ankara iyo Istanbul 12 kala barkooda 6 macnaha ka badan oo saddexda marka la isku daro 6 xaba ka badan ka dooran karta jaamacado. macnaha marka waxaa ogaanaysa in magaalooyinka opportunity aad u yaryihiin. marka haddii aad rabto inaad yeesho badanaa gobolada aad ka muhiimsan, macnaha inaad dooratid intaad magaalada dooran lahayd. inkastoo waxaa nasiib tahay haddana waxaa fiican in maadaama lagaa digtay ay ku dhihin ka yaree magaalada inaad iska yareysid, macnaha haddaad heli kartid. jaamacadahan kale waa English one. tusaalahan ka civil engineering waa English, laakiin iska fiir requirement badankoodu requirement leeyihiin. requirement yaa kasoo bixi karin, marka waxaa laga yaabaa in ay ku xulashada kugu soo adkaato. tusaalahan ka jaamacadaha aan lahayn requirement, tusaalahan midkan oo kale iska dooro kadib. hadda waxaa marunaa 4. tusaalahan kale qasab ma inaad 12 aad buuxisid, waa ka tagi kartaa haddaad rabto, haddaad rabto ku dari kartaa. marka go-aanka adaa iskale. 12kaas waa meesha ugu dambeysa, laakiinse ka yar waa ku ekeysiin kartaa haddaad rabto. المعادي شنو مرينا إلا وابد يعني إلا إيو وابد كرتا إلا لو يتون كوابد كرتا مكاودد وقتها دونا سيف عليهنا أديك خفكر وابد كرا حتى دونا قيمة سؤالها letter of intent سؤالها وسؤالها لسكوح بدنا لكن بقول كيبا أفتن واي معناها سؤاله هو مهم إن أتخابك أو جواب يسد iyo expectation kaaga iyo waxa dhan waa muhiim. marka tusaalahan oo kale marka su'aalahaaga oo kale marka hore inaad soo diyaarsataa, tusaalahan sidaan oo kale inaad soo diyaarsataa, waa soo qaadaysaa kaliya kadib waa gelin doontaa meeshana basta ku dhexeysaa. macnaha su'aalaha marka hore waa inaad sii diyaarso. haddii ku diyaarsanaan please waxaad samayn kartaa pause dhigi kartaa oo ka tagi kartaa. tusaalahan oo kale waxaad dhihi kartaa waa usoo laaban kartaa clip axade exida dhehaysa calaamadaas ka bixi doontaa clip exida dhihi doontaa. hadda inkastoo turki noo yahay calaamadaas markaa taabatid exit waayo waa ka bixi kartaa. haddii ku diyaarsaneen hadda sii diyaarso. su'aalaha waa PowerPoint oo ku sharaxay xagan way kaga muuqdaan. please su'aalahan ka shaqeey adigoo si fiican wax fiican oo soo qor oo sidikad macnaha wax ka soo bixi kartaa. kadib markaad saas u qortid save aad dhihi doontaa.
marka save dhaadi xaggan waa questionnaire waaye waa meesha ni sheegay oo interview wadanka lagu galaayo wadanka sheeg doontaa wadanka joogtid markaas wadanka joogtid waaye wadanka u dhalata ma waa wadanka joogto wadanka joogto hadii Kenya tahay Kenya dhahay Nairobi ee safaaradda Nairobi interview ku galay hadii aad tahay wadan kale ee Malaysia joogto Malaysia gelinaysa safaaradda Malaysia ku galaysa hadii aad joogtid Ethiopia gelinaysa safaaradda Ethiopia Turkiga ku leedahay interview ku gal doonta hadda wadanka joogto waa أنا Soomaali inay joogto qaada Soomaali markaad ahdid wuxuu ku weydiinaa xagee ka joogtaa Muqdisho iyo Hargeysa way ku leeyihiin qunsul ku leeyihiin oo interview waa lagu qaadaa hadda Hargeysa joogto waqooyi galbeed joogto please Hargeysa dheh hadii aad Muqdisho joogtana banaadir dhaana Muqdisho gali hadii gobol dhaxna macnaha hadba meesha niido ama Hargeysa ama Muqdisho meesha niido qofka hado ama uu tagi karo please ha gali meeshaas kadibna save dheh doontaa marka dhahdid summary last way summary-ga wuxuu ku sheegaa inaad ogashahay macnaha oo wixii soo baxay oo waxaad xareysay oo kadib waxa dheeyay waa ogolaha dheey doontaa waa ogolaha dheey doontaa kadib waxa dheey bas submit marka dhahdid automatically uu bixsamo markuu bixsamo waxa sameyn kartaa kadib marka sameeysid wuxuu ku siin doonaa meeshan aad u jeedid tusaalahan oo kale waa my application kwa meesha ni sheegay jawaabta ka soo bixi doontaa marka xariis wuxuu ku sameeynaa xilliga xareysay taariikhda xareysay application number-kaaga waa kana qofka xareynayo application number-kiisa xaggan ka soo bixi doonaa وكسو بحو bachelor degree-giisa oo gelinaa qofka bachelor degree-giisa ku muuqdo xilliga qofka xareeyay meeshan had u jeedid at waiting evaluation ku taagan bari markii meeshan jawaabta meesha kala soo cunto waaye waxa ku soo bixi doona meeshan interview-ga xaggan ka soo bixi doona meeshan qaybta ma previous application ka interview-ga saacadii iyo xilliga interview-ga galayso ku soo bixi doona hadii aad ku guuleysato waaye hadii aan ku guuleysano meeshan waiting evaluation ka waxa ku soo bixi no over degree macnaheedu waxa wax kuma guuleysan macnaha scholarship markaas oo kale ku dhamaatay macnaha sanadka dambe noqon doonta laakiin hadii waiting evaluation wali ku yahay macnaha wali evaluation ku dhimo waxa laga yaabaa in jawaab ay heshid hadii in case helina jawaab no over degree uu dhaho macnaha kuma guuleysan marka waxa sameyn doontaa marka xagan taagan tahay PDF kan tusaalaha oo kale PDF kan waa soo degsan kartaa PDF ka waxa inta xogta ay gelisan da'daada wixii oo jaamacadaha dooratay wax dhan ka arki doontaa xagan waa ka tusi doonaa macnaha qaabka oo ku aragtay wixii dhan oo ku soo dejina macnaha xisaab xareysay inta xisaab xareysay wixii oo summary waa hel doontaa وكان هو صبح دونا حتى قد كاجا علوس لكن سي PDF أهم وصبح دونا إن كيس هاد إنتان وأنت ودم بس برسلاري بوشي هو إنتان قف كادو إن كيس ترتيب وفيري وحيس وحرين كرا وحوينكم مقالنا وكان PDF كصدقي PDF كواكنا وقف كحكتيس نم قرنا ناس وكاس قف سور كيس magaciisa wixii high school kiisa uu galiyay inta jaamacada doortay wixii xareey dhan oo kooban su'aalihi ka jawaabay wixii dhan xagaan isku iman doonta wakaas inta waa bursadari qofkii uu xareyn karaa qofka haduu u fahmo wixii aan fahminna please emailkay waa u soo dirkatiin page-kayga YouTube-kana waa subscribe ku sameeya
wixii ugu dambeyn scholarship soo baxna waan idin soo sheegi doonaa. haddii wixii su-aal ahna waad comment ugu reebtay page-ka Zahir Maxamed oo Facebook ama emailka haddii xaggan ugu soo qor doono xaggan aad emailkaas igu soo diray wixii aad fahmi wayseen waa kaas. waxaa kaloo dhiga iloobin in tusaalahaan oo kale qofka hadduu ku qanacsaneen tusaalahaan wax badan ka tagay oo applicationkiis ka tagay wax badan oo wax iloobay please delayed u dhihi karaa delayed hadduu dhaho haddii dib u soo xareyn karaa haddii oo qaybta dambe qaybta labaad macnaha qaybta koowaad qaybta koowaad wax laga modeli karo haddii marka aad xareyso please qaybta koowaad wax ka dhiman yahay oo aad ku wareysanta ama qaad ka dhacay please delayed marka dhahdid haddii isoo bilaawa waa sameyn kartaa waa kaas. hadda tusaalahaan ka intusa delayed aad dhihi doontaa haddii applicationku dib waa usoo bilaabi kartaa. marka qofkii wax ka qaldan waayo qofkii wax iloobo oo kale hadda wuxuu ku dhahay you have no previous application mali haddii isoo bilaabi kartaa delayed kaliya dhihi doontaa. marka intaasaan iga iloobay khayr badan in rajeynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi.